asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalkan soo dhowaada waa mar kale iyo muuqaal cusub haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa akhbaartan runtii ah oo nuur sayid yaran iyo dabcan liz jejo mirti maxaa ka dhexeeya muuqaalkan ayaan uga hadlaynaa akhbaartooda oo faahfaahsan inta aanaa muuqaalka gudagelin fadlan daawade muuqaalka like noo saar sidoo kale haddii aad ku cusubtahay janaalkana subscribe saar waa mahadsantayntaa ka bacdi ee soo dhowow haddaba ugu horreyntii haddii aan eegno xalqaddii u dambeysay ee ahayd xalqadda 38aad dhankaasi raytinkeeda iyo daawashadeeda waxuu ahaa 9.09 haddaba hoos ahaan waxay u dhacday dabcan 0.37 ama 0.37 ayay hoos ahaan u dhacday waxaana halkan nooga cad xalqadan waxaa ka daawasho badnayd xalqadii ka horreysay maadaama xalqadii tan ka horreysay ay hoos uga dhacday 0.37 haddaba ugu horreyntii maxaa kalifay in ay hoos u dhacdo sida la sheegayaba xalqadan wax xiisa ma aysan lahayn inkastoo wax saasa aysan ku jirin xalqadan yacni tusaale ahaan hadda waxaan filaynay in dabcan xalqadan dhexdeeda doorug ninka lagu magacaabo fiideogaas arko ama fiideogaasi loo diido laakiin sheekada sida loo bedelayba fiideogii si dhib yar ayuu u daawan waayey ama si dhib yar ayuu uga tegey sidaa daraaddeeda waa mid ka xanaajisay daawadayaasha haddaba haddii aan usoo laabanno mawduuca maanta haddaba sheekada dhabta ayaa waxa ay tahay in cilaaqo ay dhex martay dabcan atriishada ama gabadha ku jirta taxanaha musalsalka walaalaha laguna magacaabo suuse waa doorkeeda magaceeda dhabka uu yahay liz jejo mirti uu yahay magaceedu ayaa waxaa dhacday inay cilaaqo la samayso ninkan lagu magacaabo doorug ama onur sayid yaran oo ah xidiga musalsalka walaalaha qayb ka ah saan wada ognahay doorug wuxuu ka mid yahay doorarka ugu muhiimkasan ee musalsalka walaalaha maadaama uu yahay caasiye jacaylkeeda sidaas daraaddeeda waxaa dhacday in asaga iyo liz jejo mirti ay dhex marto runtii xiriir jacayl laakiin xiriirkaasi lama hubo oo mid la hubo ma aha keliya waxaana la tusay sababo yaryar oo looga shakin karo iyo sidoo kale boosti ayaga soo boostigareeyeen haddaba labadooda markuu xiriirku dhex maray waxaa dhacday in xiriirku caddaado oo dabcan uu baaho kadib markii arrinkaasi la ogaaday waxaa dhacday in daawadayaasha musalsalka walaalaha ama fanis hadday u taqaantid taageerayaasha ee dabcan musalsalka walaalaha ay weeraraan gabadha lagu magacaabo suuse magaceeda dhabtan uu yahay liz jejo mirti ayna ku dhahaan lagama yaabo adiga doorug in aad dabcan caadi isu jeclaatiin nolosha dhabta ayaa laga hadlaya musalsal ahaan lagama hadlaayo saa u ogaada yacni magacyada aninba soo qaadanaya magacooda dhabta ina sheego waan karayaa laakiin magacaad u garanaysiin aan usoo qaata ayaa fiican haddaba waxaa loo sheegay gabadha suuse lagu magacaabo ama ay daawadayaashu ku dhaheen dabcan lagama yaabo inaad adiga noqotid jacaylka dhabtaha ee doorug markaas kabacdi waxaa dhacday in qaar ka mida ay dhahaan keliya adiga jacaylka dhabta la rabo doorug adiga ma noqonaysid sidii doorug ay naagta hore u qayantay ee adigana u qayaanay jacaylka dhabta ee doorug waxay noqon doontaa aasiye haddaba taas maxaa kalifaya turkida badanaa waxay dhaqan u leeyihiin atariisho iyo actar haddii ay taxane isla jiraan ama ay noqdaan laba lamaane in halkaas isku jeclaadaan haddii aa xasuutiin janaalkeena khaalid diraama 9 bilood ba hadda kasoo wareegatay ayaan kasoo hadalnay dhammaanba dadkii micnaha musalsal isku jeclaaday waa xilligii aan bilowga ahayn waxauna muuqaalkaasi ka mid ahaa muuqaaladii u horreeyey yacni turkidu badanaa waxay samaysaa haddii laba actar ay isla jiraan actar iyo atriis hadday taxane isla jiraan inay isjeclaadaan tusaale yar oo dhow hadda inii soo qaato taxanaha aa wada garanayseen ee adiga garaac albaabkayga sarkaan iyo eedaa taxanaha si dhexdooda ay isku jeclaadeen bal ka waran ilaa iyo haddana waa lamaane waxaa la sugayaa dabcan guurkooda oo keliya saan wada ognahayna handee markii u dambeysay waxay noqotay gabadha adduunka dabcan ugu istaylkasan ama ugu quruxda badan inkastoo isla markiiba laga qaaday laakiin sanadii u dambeysay 2021 ayay taas qaaday ayay ahayd marka handee aan wada ognahayna fadaxa badan samaysay ayaa waxaa dhacday in ninkaasi ay dabcan sarkaan boolaad ay xiriir la samayso waa sarkaan iyo edaa haddaad xasuusatiin sidoo kale dabcan waxaa iska cad haddii aad rabtiin actar iyo atriise isjecel dhaawici qalbiga fariid waa wada garanaysiin dabcan iyo sidoo kale taxanaha 3 atriishadeeda kartaal gabadha uu jecel yahay dabcan waa wada garanaysiin labadaasina way isjecelyiin marka sidaasi daraaddeeda waxaa dhacday
in la dhaho laba micnaha duruq qofta kaliya ku haboon waa Asiya. Turkidan waxay dhaqan u leeyihiin in ay dabcan saas isku jeclaadaan. Tusaale yar oo kale hadaan siino Buraako Sifid oo hogaamiyaha taxanaha Kurulus Osman waxuu jeclaaday atirsa lagu magacaabo Fahriye Afjan haddana taxanaha Alab Arsalan wada wayna is qabaan oo taxana ay markii hore isku jeclaadeen. Waxaa sidoo kale ilaa hadda wada socda Aras Bulut iyo Nabni jilaaga caanka ah ee hogaaminaya taxanaha gudaha dabcan waxuu jeclaaday gabadh video una lagu magacaabo waxaana ku jeclaaday taxana lagu magacaabo Maaraal. Haddaba cilaaqada ka dhaxaysa Duruk iyo Suuze ma sii waari doontaa labadoodana may noqon doonaan kuwa yacni sii wada socda ama jacaylkooda u rumoobo jacaylkooduna dabcan ku sax u noqdo. Ugu horeyntii tan laga shakisan yahay waxay tahay in waxaan ay tahay xiiso oo kaliya yacni ayna isku yarbabateen oo taas oo kaliya ay tahay laakiin labadooda aysan wax ka dhaxaynin. Laakiin ayaga waxyaalo ay soo boosti gareeyeen darteeda ayaa shaki keentay taas ayaana ka dhigtay in la soo shakiyo labadooda dabcan waa Duruk iyo Suuze. Adiga ahaantaada bal fikirkaaga nala wadaag iyo waxaad ka aaminsan tahay labadaasi mayse isu qalmaan haddii dabcan ay isjeclaan lahaayeen noloshana isla wadaagi lahaayeen bal dhanka commentiga nagula wadaag. Haddaba isbarbardhigana maanta gabadha lagu magacaabo IBK iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Hande oo ka mid ah dhaawaca qalbiga atirsada ku jirta Hande lagu magacaabo iyo sidoo kale IBK baltee qurux badan maadaama muran badan dhalisay bal dhanka commentiga taas nagula wadaag. haddaba tan kale ini wadna ayaa waxa ay tahay jilaaga lagu magacaabo Khalid Osgursari oo wada garanaysan Qadiir ahna ahaa aktarkii hore ee musalsalka walaalaha waxa uu go'aansaday in uu ku soo biiro taxanaha 3 kumi waana akhbaar rasmi ah marka warsan hore idinku sheegnayba ma uusan ahayn mid saxiixay laakiin hadda asbuuciyada soo socda waxaa la rajaynayaa in uu ka soo muuqdo telefishinka Show TV taxanaha Utkurus ama 3 kumi in uu ka soo muuqdo jilaaga lagu magacaabo Khalid Osgursari ama Qadiir. haddaba sidoo kale akhbaarta ini wadna ayaa waxay tahay damlaasuuki soo kale oo garanaysiin Melisa waa gabadhii dabcan Qadiir ay isjeclaayeen haddana taxanaha ka baxday Duruk walaashiisa waxaa dhacday in yacni run noqdo akhbaarta ay run noqoto waxaana lagu soo daray gabadhaasi ama ay qayb ka noqonaysaa san hore idinku sheegnayba taxaniin lagu magacaabayay Baba ama Abi ama Aabe ama Father taxanaha lagu magacaabo waxaana taxanaha soo gaaminaya Tolgasari taasoo taqaantiin Ali Riza. laakiin nasiib darro ayada xiligaas taxanaha atirisha kama oo taxanaha xiligaas waxaa joogta gabadhii lagu magacaabayay Ozga Yegis oo u taqaantiin Sara waa hadda ka hor gabadhaas waxay ka soo qayb gashay taxaniin lagu magacaabayay dhankayga bidix atirisadeedii waaye sidaas daraadeed maadaama dhankayga bidix atirisadeeda joogto oo Ozga Yegis lagu magacaabo ayna tahay gabadh caana waxaa dhacday in Melisa aysan ka mid ayna noqonaynin atirisada dabcan oo noqonayso aktarka walaashiisa. taxanahaasna waxaa la daawan doonaa 15 February miya mise 21 February adii labadaas mid kamid ayaa la daawanaya xalit hore ayay soo qorayeen laakiin waxa ay khalkhaliyay laba taxane ayay ahaayeen taxanaha kale waxaa lagu magacaabaa wiilkayga asagana waxaa lagu magacaabaa Aabe. marka labada taxanood waxaa la kala daawan doonaa 15 February iyo 21 February inkastoo taxanaha Baba aan u badin in la daawan doono 21 February bal taxanahaas ma soo faraqayna dhan commentiga nagula wadaag sidoo kale daawada waxaan kaaga madcelinaa daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalka like noo saar waa mahadsantahay waa anigu saaxiibkiina Khalid waxaan idin kaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.